kadib soo bixitaankii ChatGPT waxaa soo ifbaxay tartan dhanka garaadka gacan ku samayska ah oo u dhexeeya shirkadaha dhanka teknolojiyadda ugu waaweyn. Shirkado Chinese oo ay ka mid yihiin Baidu iyo Alibaba ayaa iyaguna raba inay soo saaraan chatbot la mid ah ChatGPT oo ay soo saartay shirkadda OpenAI. Shiinaha ayaad moodaa inuu rabo inuu tartanka dhinaciisa ka galo. Mashiinka wax raadineed ee ugu weyn Shiinaha ee Baidu ayaa ku dhawaaqay qorshe uu ku soo saarayo chatbot lagu magacaabo Ernie kadib soo bixitaankii ChatGPT oo keenay hadal hayn iyo su'aalo badan oo ku saabsan mustaqbalka waxbarashada, caafimaadka, warbaahinta iyo xitaa garaadka gacan ku samayska. Mashruucyo kale oo la mid ah Ernie ayay sidoo kale wadaan qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee Shiinaha sida Huawei, Alibaba, Tencent, JD.com si ay ula tartamaan ChatGPT oo ay soo saartay shirkaddan OpenAI ee fadhigeedu yahay California. Dhanka kale, Google ah mashiinka wax raadineed ee loogu adeegsiga badan yahay ayaan hore u wajihin tartan adag. Haddase wuxuu muuqdaa mid wajahaya tartan dhinacyo kala duwan kaga imanaya. Haddaba Google oo isku dayay inaan laga badin sidoo kalena raba in uu sii ahaado meesha ugu badan ee wax laga raadiyo ayaa si degdeg ah isaguna usoo bandhigay Bard oo uu sheegay inuu u shaqayn doono sida ChatGPT oo kale. Inkastoo tijaabooyinkii ugu horreeyay ee lagu sameeyey ay kala kulantay shirkadda Google khasaaro badan. Dhanka kale, Microsoft oo si weyn u maalgashatay shirkadda OpenAI ayaa rabta inay mashiinkeeda wax raadineed ee Bing ku dhafto ChatGPT si ay ula tartanto Google oo ahaa meesha ugu badan ee loo adeegsado in wax laga raadiyo. Microsoft ayaa durba sheegaysa in koror joogto ah ku imanayo adeegsiga Bing iyo sidoo kale browserkeeda Edge. Haddaba soo ifbixitaanka aaladahan siyaabo kala duwan ayaa looga falceliyay. Tusaale ahaan, ChatGPT wuxuu soo jiitay dad badan 100 milyan ayuu ku gaadhay muddo dhan 2 bilood. ChatGPT waxaa lagu tababaray trillions array oo internetka laga soo ururiyey. Waxyaabaha uu qaban karo waxaa ka mid ah wuxuu si fiican u fahmi karaa luqadda bini'aadamka wuxuuna bixin karaa jawaabo kuwa dadku ay bixiyaan oo kale. Haddaba waxaa jira dhinacyo badan oo loo adeegsan karo ChatGPT. Tusaale ahaan, wuxuu kaa caawin karaa inaad qorto maqaallo, wuxuu sidoo kale ardayda ka caawin karaa diyaarinta laylisyada iyo shaqo guriga. Wuxuu sidoo kale kuu sahli karaa qorsheynta waqtiga isagoo kuu diyaarin kara jadwal kugula talinaya sida ugu fiican ee aad shaqo u qaban karto. Wuxuu sidoo kale kuu qori karaa ama kuu sheegi karaa qaladaadka ku jira code aad ku qortay mid ka mid ah luqadaha programming. OpenAI waxay sidoo kale sheegaysaa in modelkan ay ka dhigayso mid iska diida codsiyada qaldan, sidoo kale ayna sii horumarin doonto. Marka OpenAI GPT-4 oo ah model cusub oo dhinacyo badan ku shaqayn doona sida muuqaal, cod, sawir iyo qoraalba. GPT-4 ayaa sidoo kale awood u yeelan doona inuu ku shaqeeyo luqado badan. Tusaale ahaan, waxaad su'aal ku weydiin kartaa luqad gaar ah wuxuuna jawaabta kugu siin karaa luqad kale. Marka GPT-4 oo ah version cusub ayaa ka awood badnaan doona GPT-3 iyo GPT-3.5 oo ah vershinadii hore. Marka OpenAI waxay leedahay waxaa dhici karta in GPT-3.5 iyo GPT-4 aadan ku dareemin farqiga u dhexeeya su'aal weydiinta iyo wada sheekaysiga caadiga ah. Laakiin farqiga u dhexeeya waxaad dareemi kartaa marka aad u dirto shaqo culus. Ugu dambeyntii waxaan isweydiin karnaa aaladahani halis ma ku yihiin hal-abuurnimada. Inkastoo aaladahan loo adeegsan karo in lagu sii laban laabo hal-abuurnimada, haddana dadka qaar ayaa u arkay inuu caqabado keeni karo. Tusaale ahaan, dadka qaar waxay ka baqayaan inuu mustaqbalka keeno in ardaydu aysan isku dhibin barashada wax qorista maadaama ay isku halayn karaan ChatGPT iyo waxyaabaha kale ee la midka ah. Meelaha qaar oo ka jawaabaya walaacan waxay ka xanibeen ChatGPT in laga isticmaalo kombiyuutarada yaalla goobaha waxbarashada. Inkastoo ChatGPT ardaydu ka heli karaan jawaabo fudud oo degdeg ah, haddii ay dhacdo in lagu tiirsanaado waxaa meesha ka baxaysa in ardaygu ka shaqaysiiyo maskaxdiisa si uu u kasbado xirfado muhiim u ah xallinta dhibaatooyinka. Haddaba garaadkan gacan ku samayska ama artificial intelligence waa tiknoolajiyad si xawli ah u koraysa, saameynna ku yeelanaysa dhinacyada kala duwan ee nolosha. Sidaa darteed waxaan u baahannahay inaan la qabsanno una isticmaalno sida ugu macquulsan iyadoo aynaan si buuxda isugu halaynaynin. Haddaba maxay yihiin farsamooyinka aan u baahannahay si aan ugu adeegsano sida ugu waxtarka badan? Waa inoo muuqaal kale iyo mar kale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.